السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidii aan hore u ballan qaadnay waxaan bilaabi doonaa insha allahu tacaala probability iyo statistics aynu ka isticmaalayna r python iyo sql. haddaba intaynanu guda gelin casharka amba chapter 1 maanta ah muhiimadda ay leedahay probability and statistics se maxaynu uga jeednaa probability and statistics. beri baa waxaa jiri jiray islaan ayaa waxay tidhi waxaan doonayaa waxay tidhi waan kala sheegi karaa bay tidhi haddii koobka shaaha aad shaaha ku horshubtay iyo haddaad caanaha ku horshubtay kad horreysiisay waan garan karaa bay tidhi anigoo dhadhamadiisana ka garan karaa. nin fisher la yidhaahdo ayaa deetana islaantii challengekeedii qaatay wuxuu yidhi wuu sample gareeyay deetana wuxuu eegay islaantani inta jeer ay saxi karto amba ay saxday waxan ay ku dacwoonayso. haddaad curious ka tahay storyga meelaha aan akhri oo google garee right? beri baa sidoo kale waxaa jiri jiray waxaa laba nin oo ayaa waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo waxay sameeyeen experiment bay sameeyeen cilmi baadhistaaba waxay weydiiyeen dadkay waxa weydiiyeen ka waran qof aan dadka la hadlin oo aan inta badan uun jeeda oo waxoodii arrintooda uun ku jeeda oo aan dadka dhex gelin qofkaasi ma librarian ba mise waxa weeyaan waa farmer waxa weeyaan beerato. dadka intoodii ugu badnayd waxay idhaahdeen waa librarian. haddaba khaladka ka jira inay doorteen librarian inay doorteen waxay dadku ilaabeen marka loo eego boqolkiiba 20 quraata ayaa librarian adduunka 80 kale marka la isbarbar dhigo librarianka iyo farmerka amba qofka wax beeratada 80 baa waxa weeyaan boqolkiiba 80 baa beerata 20 baana 20 baana bahalkiya wuxuu weeyaan librarian. waxaa kuu sheegaysaa human ahaan amba dad ahaan markay bani aadam ahaan markaynu ka fikirayno probability and statistics ugama fikirno si mathematical coursekana wuxuu nagu caawinayaa inaynu saa uga fikirno. waata kale beri baa waxaa sameeyey company gamemka amba soo saara gamemka lagu ciyaaro ayaa waxay is yidhaahdeen bal baara cilmi baadhis ku baara dadka 2 website bay sameeyeen marka labada website ba waxay eegayaan dadku kay inta ugu faraha badan wax ka dalbadaan ay ka doortaan mid waxay ku dareen xayisiis midna bilaa xayisiis bay ka dhigeen markay dadkii dabeetana waxa surprising iyo u qaadan waa ku noqotay dadkii inay dadku inta faraha badan leh ay ka dalbadeen kii bilaa xayisiiska ah sababta ma ogin laga yaabaa anigu markaan xayisiis arkay inaan is idhaahdo kolley been bay ka sheegayaan productkooda kan bilaa xayisiiskaana aan doorta anigu waayo tusaale ahaan kani lacag kuma isbangaraynayo inuu advertise gareeyo wixiisa wuu hubaa productkiisa amba wuxuu soo saarayo right? waa counterintuitive waxa weeyaan wax ka soo horjeeda wixii aad adigu amba companigu uu raadinayay amba uu islahaa aapka amba muxuu ahaa advertisementka amba xaysiiska ayaa dad badan soo jiidan doona bay islahaayeen laakiin contrarygii amba kii ka soo horjeeday ayaa oppositekiiba run noqotay. ka soo qaad tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad ogaatid somaliland doorashadeeda soo socota cidda ku guuraysan doonta 3 xisbi from galbeed to bari dama tegi karaysid somaliland qof walba lama hadli karta ma odhan kartid yaad u codaynaysaa right? hase ahaatee waxaad qaadan kartaa 1,000 qof baad ka soo qaadan kartaa magaalooyinka somaliland ood interview garayn kartaa ood odhan kartaa yaad u codaynaysaa 1,000 qof hadeetana sii kala qaybin kartaa
وحتى تصير قيبين كرتا دونتي stratification baa la yidhahdaa iyo clustering waynu baran doonaa farqiyada u dhexeeya qaybaha convenient stratification clustering waynu baran doonaa waxyaabaha farqiga u dhexdhexeeya marka aynu statisticska bilaabi doono iyo muxuu ahaa samplingka markaynu ka hadlayno si dadka loo qaybiye insha allahu tacaala waxyaabaha noocaasa bay markaa probabilityga kuu suurta gelinaysaa right sidoo kale waxay kuu suurta gelinaysaa haddii aad company u shaqaysid companygaas dabeetana aad design garaysid gaariyaashaaba soo saaraa ka soo qaad gaarigii markaad samayseen 20 rinji oo kala duwan baa ayaa ku buufiseen gaariyaashii waxaad doonaysaan markaa rinjiyadaas ka ugu dadku ugu jecel yihiin dadku ay iibsan doonaan right of course saasi waa lacagta kaaga xumaanaysa right oo maral baad dhisi kartaa gaariyaal yaryar oo aan gaariyaasha caadiga ahayn baad dhisi kartaa dadna kaladhada dadka tusi kartaa waanan baran doonaa sababta ay mar walba aynaan markaynu probability statistics aan samaynayno aynaan dadka oo dhan u interview garaynin amba aynaan u qaadanin populationka oo dhan ee aynu koox koox u qaadano waynu arki doonaa insha allah faa'iidooyinka leeda mid ka mida waxa weeyaan inaa de hadad 100 gaari ma soo saari kartid oo deetna ma burburin kartid haddaan dadku doon ahayn right sidoo kale somaliland meel kasta oo qof jooga de qof uma diri kartid oo ma lasoo interview garayn kartid laakiin sample ayaad qaadan kartaa qayb ka mid ah ummadda aad doonaysid inaad ogaatid halkay arrinka taagan yihiin deetna koox ahaan ayaad ka qaadanaysaa markaa samplingka waynu baran doonaa probabilityga muhiimooyinka uu leeyahay waynu arki doonaa tusaale ahaan haddaad doonaysid machine inaad samaysid machiinkaasi uu dabeetana tusaale ahaan kasoo qaad shaqaalaad leedahay shaqaalahaas qof baad ka qaaday itixaan xagga kaadida ah si aad ogaatid inuu qofkani droogyada iyo waxaas uu isticmaalo haddii itixaankaad isticmaashay inaad qofkan ku determine garayso ambaad ku ogaatay inuu khamriga iyo droogooyinka cabo haddaad doonaysa inaad ku ogaatid oo uu kuu soo saarayo 60% uu sax yahay qalabka aad isticmaashay inaad ku ogaatid de qofkaa ma eri kartid right waxaad u eryahayn qofkaas waxa weeyaan 40% amba 34% ayaa khalad noqon karaa imtixaankaad qaaday right marka waa inaad qofkaa mar kale ku eegto mar saddexaad ku eegto mar afraad ku eegto deetna averageka kuwa aad qaadid dabeetana aad eegtid halkuu ka taagan yahay right waynu arki doonaa insha allahu tacaala applicationada uu leeyahay probability and statistics haddaba probability and statistics marka aynu ka hadlayno waxyaabaha qaarkood baa gundhig u ah qawaacid u ah amba qaacidooyin u ah sida usuul fiqhiga iyo muxuu ahaa usuul xadiidka iyo muxuu ahaa ay qawaacid u leeyihiin ay qawaacid iyo dawaabid kuwana u leeyihiin ka mid tahay probabilitygu weligeed ma noqonaysa negative mid aragtay qofku leh qofka waxa weeyaan negative 30% weliga maad arag okay taas wayna isla fahnaa number 1 markaad isku dartid probabilityga haddaad tidhaahid kulmiye 40 baa u codaynaya right 40% baa u codaynaya populationka 60kii kale waa inaad tidhaahid labada kale u kala codaynaya right marka waa inaad boqol marka la isku daraynay 1 amba 100% isla noqdo tusaale ahaan haddaad coinska aragtay waxa weeyaan waa lacag maraykanka oo madax iyo daba kala tail kala leh heads and tails haddii uu fair yahay fair coin uu yahay marka saa u bahlaysid amba waa tail amba waa head markaad laba jeer samaysid waa 50-50 right 50 tails iyo 50 muxuu ahaa head one waa in isku noqdo ta kale muhiimadda ruleka saddexaad ee muhiimka ay tahay inaynu fahnaa waxa weeyaan haddii shay uu yahay c
wixii ka soo horjeeda oo dhammi waa sidii kale, right? Ka soo qaad guryahan dhisa. 100 guri baan dhisay. 100kaa guri aan horeen dhisay waxay igu qaataan 3 bilood ilaa 12 bilood. 3 bilood ilaa 12 bilood bay igu qaateen 100kaa guri ee horeen dhisay. Hadduu qof ii yimaado yidhaahdo inteed ku dhisaysaa? Confident anigoo ishuba waxaan odhan karaa waxaan kugu dhisayaa 3 ilaa 100 inta u dhaxaysa, inta 12 bilood inta u dhaxaysan kugu dhisayaa baan odhan karaa. Waayo waa wax aan hore u soo arkay, right? Waa statistics aan hore u arkay weeyaan. Get maaha wax aan ku iska keenay maaha macnaheedu weeyaan. Saasay muhiim. Haddaba haddii guri uu igu qaato 13 bilood, gurigaasi waxa weeyaan wuxuu dhaafay rangekii amba waxa weeyaan intii aan hore u ogaa ayuu dhaafay. Marka kaasi waa outside, waa complementary, waxa weeyaan marka haddii aan tusaale ahaan haddii aan haysto 5 kubadood haddaan haysto oon kubad ka dhex saaro, right? 4 baa ii hadhay, right? Marka 4taa hadhay waxaan odhan karaa midhka aan ka saaray waa 1 minus midhkan ka saaray ayaa ii hadhay, right? 1ku waxa weeyaan waa 5tii, right? Marka 1 minus midhkii aan ka saaray amba 4 ayaa ii hadhay weeyaan macnaheedu markaas. Markaynu probability-ga dhamayno aynu applicationadeeda aan dhamaystirno insha Allah tacaala waxaynu ku xigsiin doonaa statistics-kii. oo statistics wuxuu u qaybsamaa 2 descriptive oo ah muxuu ahaa cadaynaysa wixii aynu doonaynay, iyo inference statistics oo ah wax aan predict garayn karo. Tusaale ahaan haddii aan idhaahdo guryaha aan dhisi jiray waxay igu qaateen 3 ilaa 12 bilood bay igu qaateen, right? kaas waxa weeyaan waa averagekii weeyaan, waa rangekii ay igu qaadan jireen, right? Haddana waan sii qaybin karaa interquantile wax la yidhaahdo aynu baran doono iyo quantiles baynu sii qaybin karnaa. Waxaan odhan karaa 25% amba 25 boqolkiiba waxay igu qaateen intan. 25ka ugu sarreeya ee ugu badnaana intaasay igu qaateen. 50ka dhexena intaasay igu qaateen. Saasaynu usii qaybin doonaa insha Allah. Waxaa la yidhaahdaa first quantile, third quartile iyo waxa weeyaan 50% quartile-ka bartamaha ayaanu sii qaybin doonaa. Waxaan baran doonaa mean oo ah averagekii, mode, mean, median oo ah bartamaha. Tusaale ahaan haddii aan tusaalaha guryaha 3 bilood ilaa 12 bilood igu qaatay, haddii bartamahaygu ahaa 8 bilood, taasaa mediankii noqonaysa, right? Whatever the median, hadhow baynu baran doonaa. Modekuna waxa weeyaan keebaa ugu badan. Ka soo qaado guryaha inta ugu badan waxay u qaateen 3 bilood bay igu qaateen, right? Inta ugu badan 3 bilood bay igu qaateen ma oran kara. Marka modeka ayaynu insha Allah isagana baran doonaa. Markaynu modeka ka baxna descriptive statisticska waxaanu insha Allah u gudbi doonaa waxa la yidhaahdo dispersion. Dispersionka waxa weeyaan variationka, right? Guri intee buu ka badnaa, right? Marka kuwaasaynu baran doonaa iyo confidence intervalku. Confidence intervalku aynu odhan karno marka aan eegay guryahan dhisayay, right? 8 ilaa waxaan hubaa oo boqolkiiba 95 hubaa, tusaale ahaan amba boqolkiiba 99 hubaa inay igu qaadanayso gurigaagu 4 bilood ilaa 9 bilood inta u dhaxaysa, tusaale ahaan oo kale. Marka kuwaasna waxaa la yidhahdaa dispersion. Waa intay ku kala duwanayaan, waa maxay farqiga iyo inta duwanaanshaha ku dhex jiray muxuu ahaa cilmi baadhistayda amba statisticska, right? Marka intaa ka gudubna insha Allah waxaanu gudbi doonaa
distributionka iyo normal distribution, binomial distribution, iyo muxuu ahaa hypothesis, oo point estimateska iyo muxuu ahaa haddii ilaah raxmaankeedmo hypothesiska iyo point estimationka. intaa markaynu ka gudubno haddii ilaah raxmaankeedmo waxaan u gudbi doonaa linear regression iyo oo xaggaas ayn deetana iyo multi regression aynu uga sii gudbi doono machine learning iyo haddii ilaah raxmaankeedmo saasaynu wadi doonaa. mar kale kusoo dhowaada channelkeena haddii ilaah raxmaankeedmo sidaas iyo kulan dambe wanaagsan. raalli ka ahaada af soomaaligu mararka qaarkood bay gu dhagahay. asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.